On behalf of the Daybreak Africa crew, I'm James Barty in Washington, wishing you a very good weekend. subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacaddeenna subaxnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington. waa subax jimco ah bisha juunna waa 18 sanadka 2021 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga voasomali.com. saacadda afrikada bari waa 6 iyo barka aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Caashi Ibraahim Aadan iyo Ibraahim Xasan Daandurey. qodobada aad ku maqal doontaan idaacaddeenna saaka waxaa ka mid ah dekedda magaalada Kismaayo oo laga dhuufinayo xoolaha. Soomaaliya oo dhan waxaa inoo furan laba dal oo kala ah Yemen iyo Cumaan. taas awgeed ayaan hakad uu ku jiray maxjarka muddo 5 bilood ah oo ilaahay hadii maanta xoolihii ugu horeeyay muddada kadib ayaa maanta dhoofayo. waxaa sidoo kale aad maqli doontaan degmada Xudur ee gobolka Bakool oo ay ka jirto cunno yari. degmada Xudun ee gobolka Sool oo markii ugu horeysay yeelatay golo deegaan. madaxa sirdoonka dalka Masar oo gaaray dalka Liibiya iyo qodobo kale ayaan idin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. dhowr qof oo ku sugan safaaradda Mareykanka ee Afghanistan ayaa laga helay cudurka COVID-19 taasoo keentay in saraakiisha ay xiraan inta badan howlaha diblomaasiyadeed. saraakiisha ayaa sheegay in hal qof uu horey ugu dhintay COVID-19 iyadoo 114 qof la geliyey karantiil, dhowr qof oo kalena caafimaad ahaan loo daadgureeyey. saraakiisha waxa ay sheegeen in 95% kaysaska ay ku lug leeyihiin dadka aan qaadan tallaalka COVID-19 ama aan si buuxda loo tallaalin. saraakiishu waxay intaasi ku dareen in cudurka dilaacay awgiis la mamnuucay dhaqdhaqaaqyada ilaa iyo inta la xakameynayo isu gudbinta cudurka. saraakiisha ayaa sheegay in xarumaha caafimaadka ee militariga ay yihiin kuwa buuxsamay islamarkaana la sameeyey qolal ku meel gaar ah si loo siiyo oksijiin dadka u baahan. safaaradda ayaa sheegtay in dadka loo ogolaan doono oo keliya inay ka baxaan xayiraadaasi iyagoo cunto raadsanaya amaba dibadda u aadaya jimicsi oo keliya. madaxweynihii hore Ivory Coast Laurent Gbagbo oo xukunka laga tuuray intii lagu guda jiray dagaalkii sokeeye ee 2011 oo lagu waayay dambiyadii dagaal oo lagu soo oogay ayaa dib ugu laabtay dalkiisa iyadoo kumanaan kun oo qof ay isugu soo baxeen jidadka si ay u soo dhoweeyaan. Gbagbo ayaa loo wareejiyey maxkamadda caalamiga ee dambiyada ee Hague sanadkii 2011 wuxuuna 8 sano uu sugayay maxkamad iyadoo loo haystay dambiyo dagaal. xaakim ayaa wax dambi ah ku waayay sanadkii 2019 isagoo sheegay in dacwad oogayaashu ay ku guuldareysteen inay caddeeyaan kiiskooda. kadib markii uu ka soo degay gegada dawladaha, Gbagbo waxaa loo galbiyey qolka VIP-da ee garoonka dawladaha, halkaasi oo ay ku soo dhoweeyeen isbahaysigiisa siyaasadda iyo xaaskiisa Simon oo iyadu aan tegin maxkamadeyntiisa Hague sababtoo ah maxkamadda oo sidoo kaleeto soo saartay amar lagu xirayo iyada oo lagu soo oogay lafteeda dacwado la xiriiray rabshadihii doorashada kadib. warkii duniduna waa naga intaas. laanta af soomaaliga ee v o a ayaad dhegaysanaysaan oo idinkaga imaanaysa magaalada Washington. meel kastoo aad joogtaan dhegaystayaal waxaan idin leenahay subax jimca oo wanaagsan. dekedda Kismaayo waxaa ka soconaya dhoofka xoolaha kaas oo loo iibgeynayo wadamada Carabta. waxaa la filayaa in toddobaadkan dekedda ay ka dhoofaan in ka badan 2500 oo neef oo lo ah, waxaana dhoofka xoolaha ay ka bilowday dekedda Kismaayo la filayaa in isbedel dhaqaale uu ku keeno gobolka Jubbada Hoose oo waqtiyadii u dambeeyay dadkiisa ay la daaladhacayeen dhibaato dhinaca dhaqaalaha ah kadib saameyntii uu dhaqaalaha gobolka ku yeeshay xanuunka COVID-19. faahfaahinta warkan waxaa magaalada Kismaayo ka soo diray wariyaha VOA-da Aadan Maxamed Salaad. Aadan Kismaayo. dhoofka xoolaha ee ka bilowday dekedda weyn ee magaalada Kismaayo ayaa waxa uu ka dambeeyay kadib markii isku tashi ay sameeyeen ganacsada ku dhaqan Jubbaland gaar ahaan magaalada Kismaayo, kuwaas oo waayadii u dambeysay waday dadaalo xoogan oo lagu dhoofinayo xoolaha nool gaar ahaan dibadda.
dekeda Kismaayo waxaa taagan markab kaa oo lagu qaadayo in ka badan 2,000 oo neef oo lo ah taa oo loo iibgeynayo wadamada Carabta. inkastoo xoolaha laga dhoofinayo dekeda magaalada Kismaayo haddana waa sidee caafimaadkooda wadan noocee la marsiiyaa marka la dhoofinayo. agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha ee Jubbaland Cabdullaahi Cali Faarax ayaa VOA uga waramay sida ay ku xaqiijiyaan caafimaadka xoolaha. muddo 5 bilood ah xoolo ma dhoofin sababa jiro suuq yaraan jirta awgeed. Soomaaliya oo dhan waxaa inoo furan 2 dal oo kala ah Yemen iyo Oman. taas awgeed ayaan hakad uu ku jiray maxjarka muddo 5 bilood ah oo ilaahay hadii maanta xoolii ugu horeeyay muddada kadib ayaa maanta dhoofayo. wasaaraddu waxay xaqiijisaa caafimaadka xoolaha. dekeda waxaa inoo jooga dhaqaatiir waxaad caafimaadka xoolaha ka tirsan oo ka howlgala maxjarka waxay xaqiijiyaan caafimaadka xoolaha. waxaa kale oo intay xooluhu ku jiraan quarantine-ka ama maxjarka waa la naaxiyaa waa la daaweeyaa. in muddo ah ayaa u qoran inay ku jiraan 2 asbuuc ah maxjarka. wasaaraddu waxay hubisaa caafimaadka xoolaha markay baxayaan iyo markay maxjarka soo galayaan. wasaaraddu waxay u taagan tahay ama mandatekeedu yahay Jubbaland caafimaadka iyo daryeelka xoolaha. dhoofkana ahmiyad uu noo leeyahay oo xoolaheena waxa weeyo waxay ganacsada u heleen fursad. Jubbaland waxay u heleen inay xoolahooda ay u dhoofiyaan wadamada dibadda marka laga reebo waxa gudaha laga isticmaalo. xoolaha laga dhoofinaya dekeda magaalada Kismaayo ayaa la filayaa in isbedel dhaqaale uu ku keeno guud ahaan gobolka oo waayadii u dambeysay dhibaatooyin dhinaca dhaqaalaha ay ka jireen sabab la xiriira cudurka COVID-19 oo saameyn xoogan ku yeeshay dhaqaalaha gobolka. Cabdiraxmaan Sheekh Cabdullaahi oo kamid ah dhalinyarada waxbartay ayaa VOA uga warmay dhoofka xoolaha iyo faa'iidooyinka dhinaca dhaqaalaha ee gobolka uu ku keeni karayo. markii laga bilaabo dadka reer miyiga ee kabitolkooda uu xoolaha nool yahay xirfadooda iyo ganacsigooda xoolaha nool uu ku xidhan yahay oo dee iyagu inay xoolahooda safriyaan ay badeeco kale iyo lacag ay helaan maaragtay qasadkooda ugu weyn yahay markii laga bilaabo xeradii iyo gaadiidkii lagu soo qaadayay xoolihii inta dekeda iyo maaragtay inta xerada maxjarka udhaxaysa ka shaqaynaysa dawladii oo xooluhu dee si habsamida markay u dhoofayaan iyada lafteedu mataqaana canshuurtii iyo nidaamkii ka helayso. dekadii oo dee dekadaha Soomaaliya inta badan maadaama iska xidhan yihiin wax ay kasboodo hadda inagu aan dhoofinaa oo kale uusan jirin saan aaminsanay xoolaha laftooda waxoogaa hadda gaaba yar galay. marka waxaan isleeyahay dhaqaalaha hooseeya ee maaragtay dowladgoboleedka Jubbaland waxaan isleeyahay haddii ay xooluhu si istaga jooga u dhoofaan dadkii deegaankana shaqa abuur iyo investment u noqonaysaa. dadkii xoolaha waxaa dee asalkooda soo safriyey ama xeradooda ka keenay deegaano kale dee ay kasoo ganacsi ahaan usoo qaateen ayagana faa'iido badan bay ka helayaan. marka waxaan isleeyahay isbedel dhaqaalo oo dhinacyo badan taabanaya laga heli karaa xilligii ay sida habsami socodka leh xooluhu ay u dhoofiyaan. sidoo kale Cabdiraxmaan Sheekh Cabdullaahi ayaa VOA uga waramay sababta keentay in xoolaha nool laga dhoofiyo dekeda Kismaayo oo markii hore aysan ka dhoofi jirin xoolaha. waxaana uu sheegay in xilligan ay muhiimad gaar u leedahay dhaqaalaha gobolka dhoofka xoolaha guud ahaan deegaanada Jubbaland. kulkii horena waa nugiino matqana ay dekedan oo weligeed barnaamijka ka gurnayd qalqaalad dheer oo khayr Allah iyo ganacsatadii maartay rugta ganacsiga oo ugu horeeyay Allah naxariistay Shaafi Raabikayn qalqaalad dheer bay u galeen tartan bay u galeen oo ku soo guuleysteen. de xoolahan asalkoodii horena hadda waqtigii ay dhoofayeen faa'iido badan bay deegaanka dadka deegaanka ku haysteen. waan dareensanahay deegaankan markii hore dadkan waxaa lagu eedeyn jiray inay dhuxul iyo waxyaaba saas laga dhoofiyay. intii hadda maamulka Jubbaland iyo dunidu ay u soo joogtayna marka waxa kaliya hadda ka dhoofa waxaan u maleynayaa waa xoolaha iyo xogaha yar oo liina. marka inay dadka Soomaaliya intay wax soo saar yeeshaan ama xoolaha noqoto ama dhulka iyo beeraha waxay kala soo baxaan ha noqoto iyo dalka kale inay wax dhoofiyaan dadka inay aad muhiim u tahay baan qabaa. shaqa abuurkeedii iyo maaragtay investmentkeediina dadka shacabkii ay ka helayaan qof kasta inay uu ka helo iyo shaqada dhinacu ka hayo. marka waxaan aaminsanahay inay arrintaasi arrin aad muhiim u tahay ayna ku reyn lahaayeen dadka reer Jubbaland kuwa dibadda ka keenaya kuwa gudaha ka habeeyaba mataqaana iyo kuwa ganacsatada si gaar ah u khuseysaba inay joogteeyaan xoolahaas oo mar walba la helay inay aad muhiim u ahaan lahayd baan qabaa. waa markii labaad oo dekeda magaalada Kismaayo laga dhoofiyo xoolaha nool tan iyo burburkii dowladii dhexe ee Soomaaliya iyadoona haatan maamulka Jubbaland uu xoog saarayo sidii dekeda Kismaayo looga dhoofin lahaa xoolaha nool liinta iyo waxyaabo kale taa oo isbedel dhaqaale ku keenaysa guud ahaan gobolka oo dhan. Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo.
xilli ay ka sii darayso xaaladda aadminimo baahi daran ay ka jirto magaalada xudur xarunta gobolka bakool ayaa wasiirka gargaarka iyo maareynta masiibooyinka ee maamulka koonfur galbeed iyo saraakiil ka socotay hay-adaha samafalka waxay booqdeen magaalada xudur mukhtaar maxamed catoosh ayaa warbixinta nooga soo diray baydhabo xilli xaaladda bini-aadanimo ay ka sii darayso magaalada xudur ee xarunta gobolka bakool baahi aada u fara badanna ay ka jirto magaaladaasi ayaa waxaa gaaray wasiirka gargaarka iyo maareynta masiibooyinka dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo saraakiil ka tirsan hay-adaha samafalka wasiirka gargaarka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya naasir caruushe ayaa sheegay ujeedka xudur ay u tageen inay tahay sidii ay ugu kuurgali lahaayeen baaxadda dhibaatada ka jirta magaalada xudur ee xarunta gobolka bakool iyo xaaladda bini-aadanimo ee kusoo kordhay gobolka bakool wasiir caruusha wuxuu sharaxay waxa ay indhahooda kusoo arkeen anigoo hogaaminaya wafdi ka socda hay-ada samafal maamulka dowlad goboleedka koonfur galbeed hay-adaha UN-ka ay kamid yihiin hay-adda UNICEF WFP hay-adda UNOCHA iyo hay-ada international NGOs waxaan booqasho ku tagnay caasimada gobolka magaalada ku dareyna xaaladaha bini-aadanimo bakool gaar ahaan degmada xudur sida ay tahay waxyaalaha aan kusoo aragnay waxaa u muhiimsan in horta xaaladda bini-aadanimada ay soo wajahday xaalad adag dadka ku nool degmada xudur oo go-doon ay ku sameeyeen al-shabaab kadibna ay soo baxiyeen dadkii deganaa tuulooyinka ku hareereysan magaalada xudur ilaa 15 kilomitr dadkii magaalada afarta gees ka xigay tuulooyin badan ay soo barakiciyeen dadkaasna ay isugu imaadeen magaalada xudur xaaladaas runaantii soo korortay ayaa sababtay in arrinta bini-aadanimada iyo noor dadkii cariiri gasho waa garta marka waxyaabaha aada indhihiina kusoo aragteen ama xaaladda halkaasi ka jirta maxaad nooga sheegi kartaa walahi waxaan tagnay isbitaaladaan tagnay meelaha si kumeel gaara usii degeen oo ay hooyey ka dhigteen dadka markaan la hadalnana dhibaatooyinkay sheeganayan waxaa ugu darnaay dhinaca cuntada inaysan haysan cunto ku filan biyaha xoolaha coleys dhacda biyaha markaa la socota sanadka roobka guga aada u yahay biyihiisa nasiib daro sidaas haystay anaga dowlad ahaana marka meesha waxaan utaynaan xaaladaas ogaano waxaan kamid ahay tiim wasiire ah oo madaxweynaha si gaara arrinta gobolka bakool gaar ahaan degmada aada si gaara ula socdaan oo madaxweynaha uxil saaray marka ana wasiiradaas tiimkaasna matalaya ahna wasiirka gargaarka ee meesha xaalad adagaana kusoo aragna raanta u baahan in degdeg u baahan wasiirka gargaarka iyo maareynta masiibooyinka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya naasir caruushe waxaan kaloo weydiiyey inay tageen suuqa lagu iibiyo raashiinka iyo halka uu gaarsiisan yahay qiimaha raashiinka quutal daruuriga magaalada xudur aada iyo aad wallahi horta waxaa noo suura gashay inaan tagno suuqa weyn ee magaalada xudur aan tagno oon aragno sicirka qiimaha cuntada iyo cuntada taalla inay intay la eg tahay tira ahaan waxaa noo soo baxda horta cuntada suuqa taalla inay aada u yar tahay qiimahana aada u kor ugu kacay oo maraa heer dadka masaakiinta ama dadka intiisa badanba aysan awoodi karin marka muhiimadda waxaa waa in cunto degdega la gaarsiiyo si kasta oo suurtagal ah annagana mas-uuliyadaas insha allah waa u taagannahay waana xooggaan saarana sida marra hore oo gurmad degma diyaarkaas u baahnay aan uga jawaabnay si lamid ah ayaan uga jawaabeynaa insha allah sidee marka idin qorshaysan in aad ku gaarsiisaan haddii loo helo gargaar maadaama waddooyinka ay xiran yihiin wallahi horta dhowr siyaabood aan ka fakeraynaa maxay ahayd dadka horta deegaanka iyo dawladda horta waxaa la rabaa inaa marka hore annagana aa isku tashano qayldaantan abaabul waxaan sameynaa bulshada dhexeeda in dadka ay yaboohaan lacag cunto lagu gado cuntadaasa si walba lagu gaarsii kara inaan gaarsiino ama diyaaradaha lagu qaado ama convoy ciidamaha abaabulo sidii aan u sameynay bishii January cuntana waxaan ka keenay dhinaca ceel bardaan ka keenay cunto degdeg ah diyaaradaha ku geeyay marka ama labadaas mid kamid ah ama labadoodaba ama waxyaalo kale aan isticmaali doonaa insha Allah laakiin waxaan naga go'an in si degdeg ah loo geeyo waxaan rabaa inaan ka faa'iideysto fursadan
baaq u diray dadka soomaalida gaar ahaan reer koonfur galbeed in arrintaas qof walba maxay in laga jawaabo lacag loo yaqo maxay wixii suurtagal qof walba magaalada xudur iyo gobolka bakool waxay u baahan gurmada u baahan yihin annaga dowlad ahaan mas-uuliyadeena waa qaadanaynaa wixii naga aadan ummadda soomaaliyeed waxaan ka rabnaa iyo dowladda soomaaliya iyo beesha caalamka muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa kasii daraya xaaladda bini-aadanimo ee ka jirta magaalada xudur waxaana magaaladaasi soo gaaray qoysas badan oo barakac ah kuwaasi oo kasoo barakacay tuulooyinka hareeraha magaalada xudur raashinka quutul duruuriga ayaa la la-yahay magaalada xudur waxaana halkii kilogaram oo sonkor bur ama bariis la iibinayaa qiimo ka badan $1 iyo bar waana 2 jibaar qiimaha la iibiyo magaalada baydhabo. mukhtaar maxamed catoosh VOA baydhabo. degmada xudun ee gobolka sool ayaa markii ugu horeysay yeelatay golo degaan kuwaas oo ku soo baxay doorashadii golayaasha deegaanka ee Somaliland ka dhacday dhowaan. maayarkii ay doorteen xubnahaasi golaha deegaanka ee degmada xudun maxamed jaamac xirsi oogle ayaa la hadlay wariyaha VOA ee Laascaanood Cabdikariim Olol. bismillahi raxmaan raxiim. marka hore doorashadu si fiican bay u dhacday, sidaan idiin sheegay bay u dhacday si fiican oo qiimo badan bay u dhacday. markaan ka hadlo xagga hore marka degmada xudun golo hore ma lahayn oo deegaaneed maanta ugu horeysa. waxaan aad iyo aad u jecel lahay in garbaha nala qabto oo magaranaysa nala taakulo nala ku taakuleeyo arrimaha bulshada. baanu jecelahay inaanu si fiican wax uga qabanno, hadday tahay wadooyinka iyo hadday tahay nadaafadda magaalada iyo hadday tahay town plankaba. si fiican baanu u rajaynaynaa inaanu wax uga qabanno. imise xubnood ayaa ku doortay? waxay doortay 8 xubnood. waxyaabahaad is leedahay hore weydin ku qabsoomi maayeen oo hadda waad qabanaysa maxaa ka mid? waxaanu tabaynaa maadaama aan maamul hore ka dhaqaaqin, waxaanu isku dayaynaa in aanu ka dhaqaajino maamulka, hadday tahay xagga nadaafadda iyo hadday tahay xagga wadooyinkaba iyo dakhligaba. ka waran waxaasoo dhan waxyaabaha qorshaha idinka maxay yihiin? waxaa nooga qorshaysan marka hore haddii horta aan la helin amni iyo boolis, waa baalashii dowladda weeye. gaadiid inayna siiso, booliskii la keeno, haddii bay maxkamadii la furo, la tayeeyo. saasaan uga baahnay dowladda. waa gartay. ka waran dhismaha dowladda hoose iyo qalabayntiisa iyo taageerada aad u baahantihiin dhanka tababarka, maadaama markii ugu horreysay degmadanu yeelanayso golo deegaan? waxaanu runtii xaqiiqiyan gurigii dowladda hoose inkastuu dayacan yahay waxbaa ka dhisan, laakiin wuxuu u baahan yahay qalabayntii in magaranaysa repairing lagu sameeyo. haddii aabahayd maayo waxyaabahaas u baahan yahay. wax hore oo jirayna ma jirin, hadduun baa loo baahan yahay in arrimaha in laga howlgalo. mustaqbalku maxaa rajaynaysaa inay degmada xudun noqoto? inay noqoto degmooyinka ugu horreysay baanu rajaynaynaa. wafdi masaari ah oo hogaaminayo madaxa sirdoonka dalka Masar Salim Kamil ayaa gaaray dalka Liibiya, halkaas oo kulamo kula qaatay madaxda dalkaasi. arrimahan ayaa imaanaya xilli dowladda Masar ay dadaal badani ku bixinayso deganaanshiyaha dalka Liibiya. Xuseen Cismaan Saxnuuni ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada Qaahira. madaxa sirdoonka guud ee Masar ayaa kula kulmay magaalada Tripoli ra'iisul wasaaraha dowladda Liibiya Cabdilxamiid Dabiba. xafiiska warbaahinta ee ra'iisul wasaaraha xukuumadda midnimada qaran ee dalka Liibiya ayaa xaqiijiyay in kulanka uu la qaatay madaxa sirdoonka Masar looga hadlay xoojinta xiriirka wadajirka iyo iskaashiga ee dhinacyada kala duwan ee labada dal. madaxa sirdoonka Masar ayaa gaarsiiyay ra'iisul wasaaraha Liibiya fariin uu ka siday madaxweynaha Masar Abdul Fattah al-Sisi, isaga oo carabka ku adkeeyay in Masar ay garab taagan tahay shacabka Liibiya iyo dowladooda dadaalada ay ugu jirto sidii ay uga gudbi lahayd marxaladan qalafsan iyo sidii loo gaari lahaa himilada dadka reer Liibiya. ra'iisul wasaare Dabiba iyo Cabbaas Kamil ayaa wada gorfeeyay xaaladaha ugu dambeeyay ee mandiqada iyo qaababka loo xoojin karo xiriirka labada dal waa Masar iyo Liibiya.
cabaas kaamila ayaa sidoo kale kula kulmay magaalada Tripoli saraakiil badan oo uu hogaaminayay madaxa golaha qaranka ee dalka Liibiya Mohamed Al-Manfi. dhanka kale madaxweynaha dalka Masar Abdul Fattah al-Sisi oo ka hadlay xaaladda dalkaasi ayaa carabka ku adkeeyay muhiimadda dadaalada dib u heshiisiinta qaranka ee Liibiya in ay ka mid tahay tiirarka xasiloonida ee gobolka. madaxweyne al-Sisi wuxuu ugu baaqay hay'adaha dalka Liibiya inay u diyaar garoobaan doorashooyinka soo socda si ay u gutaan waajibaadka qaranka ee ka saaran Liibiya ugana gudbaan marxaladda jilicsan ee nolosha dadka. madaxweynaha dalka Masar ayaa tilmaamay in dowladiisu ay taageersan tahay in doorashada Liibiya lagu qabto taariikhdii loogu talagalay maadaama ay tahay buu yiri wadada lagu dhisi karo dowlad rayid ah oo dimuqraadi ah oo casri ah oo ay ku taamayeen shacabka reer Liibiya. ra-iisul wasaaraha dalka Masar Mustafa Madbuli ayaa booqday Tripoli caasimadda Liibiya bishii Abriil ee la soo dhaafay isagoo madax u ah wafdi heer sare ah oo ka kooban 11 wasiir iyo tiro mas'uuliyiin ah. Madbuli ayaa xiligaasi xaqiijiyay in booqashadiisa Tripoli iyo wafdiga ballaaran ee wasiirada ah in ay u tageen Liibiya in ay dejiyaan qorshe waqti cayiman ah oo iskaashi ah oo u dhaxeeya Masar iyo Liibiya. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira. haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka umuuraha islaamka iyo cabdixaafid cawil ismaaciil. wadamada khaliijka ayaa toddobaadkan sheegay inay halis noqon doonto in wadahadallada quwadaha caalamka ay kula jiraan Iiraan ee barnaamijkeeda nukliyeerka laga reebo barnaamijka gantaalada iyo dhaqanka xasilooni darrada ah ee Dahraan, waxayna mar kale ku celiyeen inay wadahadallada qayb ka noqdaan. haddii ilaahay raali ka noqdo dhegaystayaal barnaamijkeena amuuraha islaamka waxa aynu ku eegaynaa sababta ay dalalkaasi u doonayaan inay wadahadalladan qayb uga noqdaan Iiraanna ay u diidan tahay. dalalka ugu awooda badan caalamka iyo Iiraan waxa ay toddobaadkan magaalada Fiyaana ee xarunta dalka Austria uga bilowday wareegii lixaad ee wadahadallada la doonayo in dib loogu soo nooleeyo heshiiskii 2015 laga gaaray barnaamijka nukliyeerka Iiraan, kaasi oo ay ka hor yimaadeen dalka Sacuudiga iyo xulafadoodu isla markaana Mareykanka uu ka baxay sanadkii 2018. Tehraan ayaa diiday iskuday kasta oo arrimo kale loogu darayo heshiiska kaasi oo ay ku ogolaatay inay xakamayso barnaamijkeeda nukliyeerka iyadoo ku bedelanaysa in laga qaado cunaqabataynada saaran. haddaba waa maxay sababta ay dalalka Sacuudiga iyo xulafadoodu dadaalka weyn ugu jiraan inay qayb ka noqdaan wadahadallada socda Iiraan iyo dalalka lagu sheegay inay adduunka ugu quwada weyn yihiin? su-aashaasi ayaan weydiiyey Cabdiraxmaan Aadan Ruush Xadaana oo degan magaalada London ahna falanqeeye. sababta ugu muhiimsani waxa weeyaan in ay helaan waxa weeyaan damaanad in aanay hub samaysanahayn Iiraan. sidaynu ka warqabno imaaraadka Iiraan dhul bay ka haysataa, Sacuudigana khilaaf weyn baa ka dhaxeeya oo marka laga yimaado sunnanimada iyo shiicanimada Iiraan waxay isku dayeysaa inay Mako iyo Madiinaba ay la wareegto. marka waa waxyaalaha markaasi ay markastaba ay ku taamaan amaba ay doonayaanba mustaqbalka inay sameeyaan. marka arrimahaas oo dhan iyo arrimo kale oo la xidhiidha xagga waxa weeyaan gaasta iyo shidaalka iyo dee nufuudkaba waxa markaasi ay markastaba doonayaan khaliijku mar haddii ay reer galbeedka la leeyihiin gacansaar inay damaanad xoog leh ay helaan ka khaliij ahaan in aanay Iiraan nuclear samaysanahaynin. haddiiba waxa weeyaan reer galbeedku iyo gruubkan kale ee ku jira shirka iyagu danahooda ay ka talinayaan, iyaguna waa inay miiska fadhiyaan oo waxa laga wada hadlayo waa inay fahmaan si markastaba shuruudahooda u gaarka ah ee ugu horeysa in nuclearka aan la samaysan ay meesha ka dhex yidhaahdaan. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa doonaya inuu dib u soo celiyo heshiiska oo uu ka baxay madaxweynihii ka horeeyay Donald Trump. wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka khaliijka ayaa ku booriyay quwadaha caalamka inay xaqiijiyaan heshiis wata xanibaado xoogan iyo waqti fog ayna ku xidhiidhiyaan tallaabooyin lagu dhisayo is-aaminaad si looga hortago bay yidhaahdeen in gobolka uu ka dhaco tartan dhinaca hubka ahi. bayaan ay soo saareen kadib kulan ay ku yeesheen magaalada Riyaad waxa ay ku sheegeen in dalalka khaliijka ay tahay in laga qayb geliyo wadaxaajooyada lala leeyahay Tehraan ayna diyaar u yihiin inay ka wada shaqeeyaan in si dhab ah oo wax ku ool ah ay ula macaamilaan diiwaanka nukliyeerka Iiraan iyadoo lagu salaynayo dhowrista iyo madax banaanida iyo daris wanaaga. bayaankan ayay ku adkeeyeen halista ka iman karta in heshiiska nukliyeerka laga reebo cawaaqibka barnaamijka gantaalaha Iiraan iyo taageerada Tehraan ay siiso kooxo ka dhisan gobolka, waxayna ku booriyeen Tehraan inay si dhab ah u gasho wadaxaajoodka si looga fogaado inay xaaladdu sii xumaato.
tehraan ayaa iyadu aan marnaba ogolayn in dalalkaasi wadahadallada ay qayb ka noqdaan iyaga oo aaminsan inay dabada ka riixayeen cunaqabatayntii uu Donald Trump kusoo rogay markii uu xilka hayay. maxaa haddaba ka mid a sababaha kale ee ay Iiraan u diidan tahay inay dalalkani qayb ka noqdaan wadahadalladaasi? waa kan mar kale Cabdiraxmaan Aadan Ruush Xadaana. waa run Tahraan ambaba Iiraan iyo gruubkan kale ee masalan Faransiiska, Ingiriiska, Ruushka, China iyo Jarmalka oo ku jira. Mareykanku waa kii hore uga baxay, marnaba ma ogola in khaliijku ay meesha soo galaan sababtoo ah heshiiskii horeba kumay jirin. marka mar haddaanay heshiiskii hore ku jirin, intaanu Trump laalin heshiiska, dee maxaa imika u soo gelayaan? halkaas ayay iyaguna ay ka fikirayaan. Iiraanna ay markaasi doonaysaa inaanay soo gelin khaliijka. sidaynu ka warqabno, reer galbeedkuna waxay markastaba doonayaan in ay khaliijka yidhahdaan annaga idin difaacayna, annaga idin ilaalinayna, sidaa markaasi ay dhaqaalaha kaga gurtaan. laakiin uma malaynayo in iyaga laftooda ay ogolaanayaan in Sacuudiga amba Imaaraadka amba Baxrayn amba Qatar amba Cumaan ay kasoo qayb galaan shirkaas socda oo weliba maraya markiisa ama waxaweye wareegiisii 6aad oo dhici kartaba in 2 bilood dib u dhaco, iyadoo laga baqanayo Iiraan imika doorashada soo socota niman mitid inay qabsadaan oo sidaa ku fashilmo. Sacuudiga iyo Iiraan oo xiriirka kala goostay sanadkii 2016 ayaa bishii Abriil waxa ay wada hadallo toos ah ka bilaabeen dalka Ciraaq si loo xakameeyo xiisadda gobolka. waxa aan shaki ku jirin intan iyo intii uu Joe Biden la wareegay xafiiska Washington wax badan iska bedeleen siyaasadii Mareykanka iyo bariga dhexe, gaar ahaan wadamadii isku waday in iyaga uun wax laga weydiin karo gobolka oo Sacuudigu kow ka yahay. maxaa haddaba laga baran karaa isbedelkan? su-aashaasi ayaan weydiiyey Jamaal Axmed Cabdi oo madax ka ah idaacad af Soomaali ku baxda oo la yiraahdo Maqal Radio oo ku taala magaalada Oslo, falanqeeyana arrimaha bariga dhexe. waa sidaa sheegtay walaal Cabdixaafid oo waxa weeye siyaasadda dowladda Mareykanku sidii u yimid madaxweynahan cusub ee Joe Biden waxay qaadatay jiha ka duwantii markii hore. taasina markaa waxay keenaysaa in waxyaabo badan ay isbedelaan. haddaan tusaale soo qaato, dowladdii hore uu hogaaminayay madaxweynihii hore dalka Mareykanku xiriir fiican kala mu dhaxayn dowladda Iiraan, waayo heshiiskii ay wada galeen waxa ka baxay Donald Trump. marka ka baxaasi waxay keentay wadamo badan oo ku yaala khaliijka oo ka koob yihiin Imaaraadka iyo Sacuudi Carabiya inay arrintaa ku taageeraan Mareykanka oo markaa Iiraan ka soo horjeestaan. laakiin mar hadda siyaasadii isbedesho dhinacii kala qaadatay, waxa ku adkaatay wadamadii markii hore ma garanaysaa dee ka soo horjeeday Iiraan inay doonayaan inay halkii ay sii taagnaadaan oo qayb ka ahaadaan go'aamada laga gaarayo dowladda Iiraan. laakiin maadaama xukunkan cusub ee hadda Mareykanku uu ogolaaday in wadahadalladii la soo celiyo oo laga qaado dowladda Iiraan cunaqabataynta, lagana wada hadlo ma garanaysaa heshiiskii nuclearka hore loo gaadhay, marka dowladda Iiraan waxay codsatay inay la xaaliso wadamada arrintaas ay qusayso ee uu madaxda ka yahay dowladda Mareykanku. waxayna codsatay inay marnaba Sacuudi Carabiya iyo dowladda Imaaraadka aan qayb ka noqon. taasina waxay ku noqotay wadamadii khaliijka inay dhabarjab ku noqoto. waxaana caadiyad waxaad ogtaa inta badan inay siyaasaddu isbedesho, laakiin wadamadan carabta intooda badani inay mar walba madaxweynaha cusub ee yimaada Mareykanka iska daba kacaan. waxa aan shaki jirin inuu culays kaga yimi dalalka khaliijka, gaar ahaan Sacuudiga iyo dalka isotaga Imaaraadka Carabta oo iyagu markii uu xilka hayay madaxweyne Donald Trump qayb weyn ka qaatay in cadaadis la saaro Iiraan. laakiin markii xafiiska uu ka baxay Donald Trump waxa ay ka firsan weyday in ay xiriir la yeeshaan dalka Iiraan. sidoo kale waxa ay dalalkaasi oo markii hore xiriiradoodu aanay wanaagsanaayeen ay imika dadaal ugu jiraan in ay xiriir la yeeshaan dalka Turkiga. sidoo kale waxa ay soo celiyeen xiriirkii u dhaxeeyay iyaga iyo Qatar kadib markii ay cunaqabateen cirka iyo dhulkaba saareen. intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii amuuraha islaamka. aniga oo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa isku soo dubariday oo idinla socodsiinayay, aniga iyo dhammaanba asxaabta igala qayb qaadatay. tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii Ilaahay raalli ka noqdo, sidaas iyo nabadgelyo. haatan dhegaystayaal waxaad nala dhegaysataan heesta halku dhageedu yahay Layla iyo codka Allah u naxariistay Axmed Gacayte Yuusuf. waxaa laygu kaladay laygu kaluray idaacaddeenna saakana dhegaystayaal waa naga intaas. waxaa idiin soo jeedinaya Caashi Ibraahim Aadan iyo anigu ah Ibraahim Xasan Daanduray. intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo. kalgacalkiyo
laaskeeda raaxiyo